السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن خيارتا إنه حرن إذلكين بعمل كستو جوكتان حلي كستي وقت كستي إذن تهاي جمعة وناكسن مقال كان قارك أهي وحان كقهد لينا جيرida موت القفلها دق أهي كتمي الله سبحانه وتعالى هاونا حريستيغ شيخ وين عالم كصومالية الشيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي ويلكيسي oo geeri ku timi xalay ayay ahayd markay umadu ku waabariisatay geerida la soo dhigay baraha bulshada iyadoo dadku aad ugu tacsiyeynayeen haddaba mar uu ka hadlayay sheekh Abu Dalxa isla markaana muuqaal dheer soo duubay waxa uu yiri kana warbixiyay geerida ku timid iyo qaabka uu dhintay haddaba sheekh Abu Dalxa wuxuu intaasi ku daray inuu qaarigani ahaa wiil da'yar islaam markaana jiiftay kadibna loogu tagay qolkiisii hurdada asigoo meed ah allaha u naxariistee waxaa imika aad isu soo taraya sida dunida iyo waliba baraha bulshada markaad ku jirto umada Soomaaliyeed dadka dhalinta yar ee geerida mootul qaflaha ama noocaani ay ku imaanayso walow ilaahay xukumay dadka geeridu xilliga ay u imaanayso iyo waliba saacada uu baxayo naf waliba goorta ay baxayso ayaa haddana waxaad moodaa markii aad milicsatid amaba aad egtid hareerahaaga familigaaga qaraabadaada asxaabtaada amaba umada Soomaaliyeed oo kale in ay isi soo tarayso geerida dadka dhalinta yar haday ahaan lahayd caruuraha dhalinyarada iyo dadka kaleba iyagoon xanuunsanayn amaba lala tacaalin oo la sii ogaanin qofkan xilligu uu dhimanayo mararka qaar waxa dhacda markii la geeyo isbitaalo qofka in la ogaado inuu xanuunahayo isla markaana dhaqaatiirtu ay sheegaan in qofkan uusan haysan waqti uu ku sii noolaado taasi oo mararka qaar qofku u saamaxayso inuu sabro balse wax waliba waxay u dhacaan sida uu Allah subhanahu wa ta'ala qadaray geeridaasi ayaa umada Soomaaliyeed aad maanta tiiraanyada u la wadaagayaan haddaba marka dadka qaar waxay dhahaan qofka markuu shabaabka yahay geeridiisu way ka xanuun badan tahay geeriyada kale sababtoo waxay Soomaalidu sidoo kale tiraahdaa waxa geeridu ugu sii xanuun badan kala xanuun badan geerida ee mar walbaba hadaaq barad iyo hanaqaad hadaaq barad oo loola jeedo ilmaha yar ee markaasi aadka u yar oo aad jeclaysanaysid qosolkooda iyo la joogooda iyo jaceylkooda iyo maxabadooda halka dhalinyarta shabaabka wiilkan oo kale Sheekh Cali Soofid dhalay qaariga Cabdul Xamiid Allah ka raali noqday ay geeridiisu iyo dadka la midka ah ay aad u xanuun badan tahay sidoo kale warbixinta waxay intaasi ku dareysaa in sheekha caalimka ee Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Soofi uu safar siyaa xagga iyo Baytullah ee xaramka si uu u soo cimreysto haddaba qoyskan ayaa waxay degan yihiin wadanka Qatar ee magaalada Dooxa waxaad ila qaybsataan geeri xanuun badan oo ku timid walaal aanu jecel lahay sheekh aanu jecel lahay qaari aanu jecel lahay oo qalbigeena ku weyn waa geerida ku timid sheekha iyaga iyo qaariga iyaga Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Soofi oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka doortay wiil u dhalood in badan aragteen asagoo la socda waa alqaari Abdul Xamiid Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Soofi إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وسع مدخله أبدله دارا خير من داره أهلا وأهلا خيرا من أهله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ونوم المحبين عني حرام لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصيام كثير الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل
أكثروا ذكر هادم اللذات ولا لهيغا مسلمين تاهو ميل والبؤ الدنيا أدك جوغتان سيدا آيادا قرآن كإيا حديث كأدك فهنتين به غيريدو كلا حنون بدنه ويل يرو للي يرى أو مستقبل كأسو بحية أو كتاب كإلهي حنبارسا أو هميلا سرله runtii waa xanuun badan geerida ku timaada waa xanuun ka badan xanuunada kale geeridu kala xanuun badane qof intuu xanuun ku raagay oo sariiryaal ahaa oo isbitaalada lagula noqnoqon hayay oo lagu daalay oo marar qaarkood xataa la tamaniyo inuu ilaahay uga raaxeeyo xataa ma ahayn wiilkan yarka ah waa seexday gurigiisii iyo qolkiisii baana isagoo mayda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku qaatay waxaan rajaynayaa walaalayaal inuu wiilkaa yarkaa uu ku darmado sidii ninkii yidhi ma seexanayo ilaa aan 30 jeer qur'aan ka dhammeeyo markuu 29 jeer dhammeeyey ayay hurdadii ka qaalib noqotay markaasuu seexday xuurulciinti ayaa marka lugta ku dhufatay waxayna ku tidhi atakhtubu mithlii wacannii tanaamu wanawmu lmuxibiina cannii xaraamu liannaa khuliqnaa likulli imri'in kahiiri siyaami kahiiri salaa waxay ku tidhi ma intaad annaga qur'aanka nagu soo doonato oo aad qur'aanka meherka yaga ka dhigto miyaad haddana seexanaysaa atakhtubu mithlii wacannii tanaamu wanawmu lmuxibiina cannii xaraamu liannaa khuliqnaa likulli imri'in waxaana loo abuuray qof walboo soom badan qof walboo salaad badan fanashhadu allaha jala jalaaluh waxaan ka marakacaynaa inuu ahaa mid qaari'a oo kitaabka ilaahay aqriya oo aabihii ku dul aqriya oo muslimiinta ku dul aqriya naxsabuhu kadalika wallahu xasiibu inuu ilaahay ikhlaas ooga dhigay walaalayaal tacsidaa ila wadaaga sheekhayagoo cumro u sii socda inay geerida xanuunka badan haddana soo gaadho runtii waa xanuun labaad asaga oo ka maqan waxaan ilaahay u weydiinayaa inuu u naxariisto uuna ka dhigo kuwii uu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam washaabun nasha'a fii cibaadati rabbi wiil dhalinyaro ah oo cibaadada ilaahay ku barbaari waa kuwa harsan doona carshuraxmaan hooskiisa allah waxaan u weydiinayaa jala jalaaluhu in dunida uu ka raysto oo meel wanaagsan loo diyaariyey oo ay xuurulciintu ay soo dhowayso ayaan ilaahay u weydiinayaa sheekhana sheekh cabdirashiid sabran ilaahay qalbigiina ha adkeeyo sabra idinka aayaadka sabarka nagu dul aqriya min albaqara ilaa birabbi nnaas boqolka aayadood waxa ku dhow ee sabarka ah idinkaa nagu dul aqriya salaatu leylkana idinka ayaa nagu tujiya idinka ayaa salaadaha nagu tujiya maalintay timaado تطبيقا وعملا لقوله جل جلاله واصبروا إن الله مع الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم انت أيان شعرها ولا ليال أما أن شعر إلى إذن لو ذاقو هذا وبالله توفيق وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين إلهي هنوكرا ديريو allah subxaana watacaala raaliha ka noqdo inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun sharaf midigtoona for idinka soo gaaray muuqaalkan fadlan u duceeya aan isu duceyno